آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي أي تاي مركي كوهريسي أتصبو خانيسي يوتيوب channel كي سبسكرايب صار لايكنا ده حي إتاي دير كلين سو دوادا. darsiga maanta aan soo jeedinayo wuxuu ku saabsan yahay walaaltinimada islaamka. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadiisa qur'aanka kariimka ah wuxuu ku leeyahay إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. islaamku wuxuu ka dhigay mu'miniinta inay walaalo yihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi innama almu'minuuna ikhwa. mu'miniintu in kala mahane waa walaalo. rabbigooda allah, nebigooda muxamed sallallahu calayhi wasalam, diinkooda waa alislaam, dastuurkooda iyo kitaabkooda waa alqur'aan. meeshay u jeesanayaan ay u tukanayaan waa kacbada ilaahay. maxaa ka weyn islaamka inuu ummaddan oo idil walaalaysiiyo u miday. salmaan reer furus buu ahaa, suhayb reer ruum buu ahaa, bilaal reer xabash buu ahaa, abubakar sadiiq carab buu ahaa quraysh. dadkaasoo idil nebigu wuu walaalaysiiyey calayhi salaatu wasalaam. wuxuu ka dhigay sidii jir qorataa. jirkaasi xubin haddii ka xanuunsato inta kale way soo jeeda, oo xumad iyo garaaca, oo isjecel yahay, waa dad iska warhaya, waa dad walaalo ah, waa dad mid qorata ah. maanta yurub waxaa lagu walaaloobay ay ku midoobeen waa ciidanka iyo lacagta iyo xoogga dalka. laakiin muslimiintu jir qorata ay iska yihiin. adduunka cizi iyo sharaf iyo karaamo ayay ku helayaan. midnimadu waa xoog, laakiin kala tago waa dacaf. aakhirana cizi iyo sharaf iyo janno. ilaahay waxa uu leeyahay aawi dadkii daraaddeeda u walaaloobay. darajo saro ayay gaarayaan adduunya aakhiraba. sidaa awgeed walaaltinimadu in la ilaaliyo oo mid la noqdo waa sida islaamku na farayo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل